tanka gabi ahaanba ka tanaasulay musharaxnimadiisii kalka saddexaad gobernatoraha gobolka Minnesota Tim Walz. Tim ayaa waxa uu sheegay inuu cadaadis fara badan kala kulmayo gurbo iswata oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga iyo cadaadis fara badan oo ay ku saarayaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo xertiisa in uu ka tanaasulo in uu ahaado musharax. ninkan ayaa waxa uu sheegay in cadaadis fara badan uu kala kulmay xagga xukuumadda Trump kadib markii ay ku eedeeyeen in qaladaadkii iyo lacagihii la lunsaday ee xilliga faraha badan ka dhacay gobolka Minnesota uu si fiican u manage gareyn waayay. ninkan odaga ayaa waxa uu sheegay in uu rabo in uu dadka reer Minnesota u shaqeeyo daqiiqad kasto oo igaga bixi lahayd buu yiri inaan campaign galana waxaan jeclaystay in aan dib ugu soo celiyo dadka aan u shaqeynayay oo aan anigu noqon musharax. dadka Minnesota jooga ayuu waxa uu ku sheegay dad shaqeysta dad xoogsada dad maaragtay xushmad leh gobol fiican degan hase yeeshee la rabo in burush la mariyo lagu eedeynayo in ay wax dhaceen. waxa uu sheegay ninkan in lacag 9 bilyan oo dollar xilligii hadeer ay jirtay arrimahan qiyaanada iyo lacagahan la dhacay fraudka uu jiray la qaatay arrinkana uusan si fiican u maareynin xilligii uu joogay marka ma rabo bayiri in ay distraction ku noqoto xisbiga oo ay ka weeciso hanashada iyo inay sii haystaan gobolka oo uu sii ahaado gobol dimuqraadi ah. ma rabo dhahay arrinkaas in uu ku noqdo caqabad doorashada soo socota mana rabo dhahay inaan campaign u galo oo arrinkan uu ii noqdo waxa focuska aan saarayo oo aan ku raadinayo kal saddexaad inaan ku noqdo gobernatoraha gobolka Minnesota. marka waxa uu sheegay dadkan meeshan inay tahay gobol wanaagsan caruurtana lagu korsan karo dadka joogana ay dad shaqaysta ay yihiin dhowr qof oo boqolba aan gaarin oo dambi galay in aanan loo wada xukumin ama aan gobolka oo dhan looga dhigin gobol dowladda federaalka ah ee dalkan Mareykanka aad iyo aad dhicid iyo bob ku salaysnaa. marka arrinkan isaga ah ayaa waxa uu keenay in uu cadaadiskaas u dareemay kadib waxa uu keenay in uu iska drop gareeyo oo uu iska joojiyo ama ka tanaasulo in uu sharaxo mar saddexaad. waxa lisla dhaxmarayaa hadeer haweeneyda iyadoo ah senatarada aqalka sare ee ugu jirta gobolka Minnesota Democratic ah Senator Amy Klobuchar baa la yiraahdaa ayaa iyadu waxaa loo badinayaa in ay noqoto gobernatoraha soo socda ee gobolka Minnesota inkastoo oo aysan sheegin go'aankaas iyada ah in ay qaadatay iyo in kale. waxaan rabaa buu yiri inaan u sheego madaxweynaha gobernatoraha dadka reer Minnesota waa dad shaqeysta 24 saac maalin kasto waxaana ay ku jiraan ama ku foogan yihiin in ay noqoto Minnesota meel wanaagsan oo caruurta lagu korsan karo oo dhaqaale ku soo kordhisa dalka gobolkanna uu noqdo gobolka ugu muhiimsan ama ugu wanaagsan ee lagu noolaado caruur lagu korsado buu ku soo celceliyay dhowr jeer. waxa kale oo uu sheegay in aysan arrinkan hadda uu ku kacay aysan wax ka bedeli doonin dadka fraudka galay oo lacagaha xaday iyo madaxweynaha dalka Mareykanka intaba. marka arrinkan isaga ah waxa uu sheegay inaysan waxba ka bedeli doonin dadka fraudka galana aysan waxba ka bedeli karin madaxweynahana uusan waxba ka bedeli karin aniga oo jooga buu ku faanay inkasto oo cadaadiskaas uu ku keenay in xisbigiisa uu u turo. ninkan ayaa waxa ogtiin inuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii musharaxii madaxweyne ku-xigeen ee Kamala Harris ka hooseeyay. marka dagaalkan waa dagaal fog oo dheer oo ku saabsan dimuqraadiga iyo republicanka ama jamhuuriga iyo dimuqraadiyiinta u dhaxeeya. sidaad wada ogtihiinba Biden last minute ayuu sugay madaxweynahaas markii uu announce gareeyay ama uu sheegay in uusan sii wadi karin campaignka markaasna waxay noqotay madaxweyne ku-xigeenkii oo Kamala Harris ahayd in la keeno si degdeg ah loo keeno. arrinkaas dhibaato weyn ayuu ku keenay dimuqraadiyiinta laakiin hadda waxaad moodaa in cashir ay ka barteen oo ninkan odayga ah bisha January oo bisha koowaad ah uu isa sii qadimay si ay u helaan 12 bilood oo ay ku go'aamiyaan qofkii u tartami lahaa gobolka Minnesota. ujeedka ugu weyn ee dimuqraadiyiintu ay leeyihiin waa in gobolka Minnesota uu ahaada gobol dimuqraadi ah
ujeedka ugu weyn oo loo bumbuuninayo lacagahan la xaday dhaykaradan la wareegayo feeding our future baalkii housing stability-ga programyadan oo dhan waxa loo kicinayo oo xooga iyo focuska loo saarayo lacagaha loogu bixinayana waxa waaye in republikaanka ama xisbiga jamhuuriga uu gobolkan la wareego gobolkanna uu ka dhigo gobol red state ah ama gobol gaduudan oo ay u taliyaan jamhuuriga marka waan arki doonaa qofka dimuqraadiyiinta ay soo saaraan inkasta oo gabadhaas hadda Amy Klobuchar la sheegay in ay u badan tahay in xaggaas gabadhaas ay keeni doonaan dimuqraadiyiinta hase yeeshee ay weli wax go'aana ma aanan gaarin bay iyada nafteeda tiri waxaan arki doonaa insha Allah qofka ay keenaan oo ay ugu talagalaan in uu la tartamo qofka republikaanka ah so insha Allah taala wixii ka soo kordha siyaasadda dalkan Mareykanka iyo arrimihiisa iyo qabshaxdiisaba nala soco haddaad nagu cusub tahay subscribe haddaad hore noola joogtay like and share the video waan ka mahad celinaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh